ان gudoomiye engineer Faisal Ali Waraabe arrimaha Soomaaliya de wada socota xukuumadda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha dibadda qoraal ay soo saartay ay irgeygii qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya ay leedahay wadanka ka baxo Faisal ahaan sidee baad u aragtaa horta waxa weeye arintan ay ku dhaceen magaalada maamulkan farmaajo waa arrimo badan oo jar iska xoorisa oo soo daba taagnaaba weeye waxa aad iyo aad u muuqata waxa weeye inay kureeyan qabsatay madaxtooyada magaalada Safila Soomaaliya say u dhaqmayaan inay tahay wax ka fog wixii loo doortay Soomaaliya waa under occupation under the United Nations ka hadlay waa tarkii 50skii oo si hoos ah lagu sameeyay laga waxa u dhaqmayaan iyagu kureeyan sidii dawladnimo ay dawlad yihiin waday aragtay heshiisyo ay la geliyaan waddamadii geeska Afrika ee dhisnaa iyagoon marka mukarram wadada marka ka bixi karin marka beenta ay runtoodii ay moodeen inay taswiirteen bay kula dhaqmeen ninka UN-ta xaq buu leeyahay inuu wixii ka dhacay baydhaba iyo xadhigii roogaba inuu weydiiyo mas-uuliyad baa ka saaran siday mas-uul uga saaran tahay inuu hagaajiyo nabad ka keeno Soomaaliya siday uga saaran tahay inuu dhaqaalaha siiyo ilaa iyaga diyaarada ayaa ka bixiyaan taga bixisa jeedaan ko diyaar ku tagayaan aanu ka degan farmaajo ilaa ciidamada iyaga siiya magaalada dhaqaalaha marka ilmihii kugu jira afka aad ku siiso mashruuc hadduu kale ku qaniinaya soo ay dabdara ma maanta Soomaaliya laba meelun ba u taaran waxa u taaran inuu amba dagaal ka dhaco civil war amba dictatorship ku soo noqoto marka aad iyo aad baan ku condemn garanaynaa ninkan waxa nidaal sameeyay buu ahaa kii hore aba u saaya u macaanaaday laakiin kan waa nin diblomaasi shaqada garanaya waxaanu ka shaqeeyaa dee arrimaha Soomaaliland uu qaabilsay marka qayb qura ma eri karo waxa leenahay kuwa UN-ta jooga ee ku xayiran magaalada saay motorka lagu soo tuuray ku xayiran xalane hay-adaha inta Soomaaliya yimaad isna ka yimaad ayaa waxa suumina laakiin gudoomiye de miyaanay dawladda federaalka Soomaaliya waa dawlad miyaanay xaq u lahayn oo siday ku doodayso wax leedahay arrimihii gudaha ayuu soo farageliyay xaqna uma laha miyaanay iyagu xaq u lahayn inay wadanka ka eegayaan oo markan uu soo geliyaan ciidamada kale amsano roobo qabanayaan dadkayna laynayaan saa u joogteen dadkii mudahadka dhigayay markaas maana soo furteen waxaan aad iyo aad u maanayaa nimanka xildhibaanada ah ee badbaadada la baxay waxaan aad u emotion ka keenay badbaado u baahantay anaguna waan galnaa hadaan Soomaaliland nahay waa jaarkeeni Soomaali maanta badbaado u baahantay waxaan u baahanahay Soomaaliya badbaadiya kuwana meelaha inta yiraahaan waxaan ka hadlaynaa Soomaaliya heritage-kana waxaan leenahay war Soomaaliland way taagantay laba intii time ahayn tanba u baahan la hagaajiye iska dhaafa Soomaaliya soo wada hadalkeedu Soomaalida la hadli lahayn ee dhisan lahayn aan wada dhismo laakiin su'aal meel isweydiin karan idinku waxaad ka cabataan faragelinta uu farmaajo ku eedeysteen arrimaha Soomaaliya faragelinayo idinku arrimaha muqdisho maxay ka galaa Soomaaliya annaga waxa naga dhahay waxa weeye annagu ma undermine garayno waxaan leenahay waan inuu gacan siinaan doon waxaan war wax wada waa joog laakiin soo waan ognahay inuu gacan soo galiyo uu focus ka basaar Soomaaliland in khayra sharita ka yimid Mareykan marka waxaan leenahay Soomaaliya haddii Soomaaliland ay meeshan inagu xil inaga saaran yahay Djibouti kama saar Djibouti taasoo Soomaali markay meesha wax ku hayo erka maray inagu xil inaga soo leenagu xiray wana inagu aynu roolkeena ciyaarna bottom up approach sameeyna marka waa inaan hagaajinaa tan waxaan ku leenahay waa meel ka dacweyn uu sameeyay Somaliland iyo doorka irgeyga bal adu saad u arag uu imaka wuxuu doonayay inuu wada hadal soo nooleeyo doonayay inuu fikradu kureedan meesha qabsatay ka qabeen Somaliland ay doonayaan si goboleed oo la hadlay buu ka bedeliyay dariiq sax uu ku taagay dariiqii hore ku taagnay madaxweynayaashii hore